السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رئيس وحام هذا اسكال الله سبحانه وتعالى. برامج كنا ما انتو حكو سابسين هاي متانها وعرمها لحرير الدمركة يا متانا دالي كرا أرتو إن متانا لدالو ووحكو حرن أود على وانا هديد الله سبحانه وتعالى وبحيه. لكن وحان سو قد بينيا دمركة نوع متانها دالو وحياوها أفضية إني متانا دالان يعني سو قد بينيا هدو الله إدمو فضلا هداد جانل كان يوتيوب كاد كو عصب تاهي سبسكرايب سار ونوغو سو برساد ولا سocodto xogaha caafimaadka taxanaha iyo arimaha la xiriira dumarka waan idin soo gudbino maanta waxaan ka hadlaynaa mataanaha dumarka yaa mataana dhala iyo waxyaabaha u fududay inay mataana dhalaan ayaan ka hadlaynaa intaanan u gudbin astaamaha lagu garto dumarka mataanaha dhala waxaan rabnaa horta marka ugu horeysa inaan ku horumarno mataana horta meeqa loo qaybiyaa guud ahaan mataanaha waxaa loo qaybiyaa laba mataano nuuc loo yaqaano monozygotic twins iyo nuuc loo yaqaano dizygotic twins. Monozygotic twins waxa waaye waa mataano asal ahaan ka imaaday minida aabaha mid ka mid ah iyo ugxaanta hooyada mid ka mid ah ayaa waxay sameynayeen bacrin markii bacrin ay sameeyaan waxa uu hore ka soo baxay waxa loo yaqaan zygote. So zygote ayaa wuxuu u qaybsamayaa laba kadib waxa ka soo baxayo laba cunug oo mataano ah. taas micnaheedu waxa waaye monominus waxa waaye single waaye waxay ka yimaadeen one sperm iyo one ovum ayay ka yimaadeen oo hal min iyo hal ukun ayay ka yimaadeen. laakiin haddii dizygotic twins ay tahay dizygotic twins waxay kaga duwan tahay waxa waaye oo ah qaybta labaad iyaga badanaa waxay ka yimaadeen dizygotic twinska ugxaanta hooyada laba ka mid ah iyo minida aabaha laba ka mid ah ayaa waxay sameynayeen bacrin kadibna waxaa ka soo baxaya laba cunug oo kala gooni ah way isku ekaan karaan wayna kala duwanaan karaan badanaa laakiin way kala duwan yihiin dizygotic ama fraternalka waxay noqon karaan gabar iyo wiil waxay noqon karaan laba wiil waxay noqon karaan laba gabar. laakiin monozygotic twinska iyaga waxa waaye badanaa waa laba gabar ama waa laba wiil aad ayayna isugu egyihiin 100% waayo sababta isku ekaanshaha waxa waaye asal ahaantood waxay ka yimaadeen one sperm iyo one ovum ayay ka yimaadeen oo dib u qaybsamay. So marka sidaas ay ku kala duwan yihiin intaas loo qaybiyo laakiin in hooyada inay dhasho mataano waxyaabaha u fududeyn karo ayaan ka hadlaynaa. waxyaabaha u fududeyn karo waxaa ka mid ah kow hooyada inay leedahay wax loo yaqaano family history of twins oo ah in hooyadeed in ay hore mataano ay u dhali jirtay. haddii hooyadeed hore mataano ay u dhali jirtay oo kale inay mataano dhashay iyadana sidoo kale fursadda ay mataano ku dhali karto aad ay u badan tahay. laakiin waxaa ka sii badan iyada inay tahay mataano markay iyada mataano ay tahay fursadda ay mataano ay ku dhali karto way kaga badan tahay markii ay kaliya ay haysato dhaxalka oo ah inay hooyadeed mataano ay dhali jirtay. So iyada inay mataano ay tahay ayaa kaga badan. So marka in taariikh hore oo mataano dhaxal ahaan inay jirto iyadana sidoo kale gabadha ama hooyada way u fududeyn kartaa inay mataano dhasho. waxyaabaha kale ee fududeeya in hooyada ama gabadha inay dhasho mataano waxaa ka mid ah da'da oo kale oo dumarka jira 35 sano ama wixii ka badan ama ka sii weyn waxay haystaan iyagana sidoo kale fursad ay ku dhali karaan mataano. sababtuna waxa ay tahay dumarka markay gaaraan da'da 35 sano iyo wixii ka weyn waxay galeen xaalad loo yaqaano premenopause oo ah waxay u socdaan dhankii caadada inay ka istaagto ayay u socdaan taa oo keenaysa marka in ugxaansidayaasha inay soo daayaan hal iyo wax ka badan oo ugxaan inay soo daayaan taa oo keenaysa marka in xawadii aabihii inay ka faa'iideysto ugxaantaasi meeshan ay ka soo baxaan mataano. So marka badanaaba da'deedina sidoo kale waxay ka qayb qaadataa in ay hooyadu ay dhasho mataano. waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano in vitro fertilization. in vitro fertilization waxa waaye process ama hab la fuliyo markii hooyadii aabaha cilad dhalmo la-aan markii xaggooda ay ka jirto. waxaa la soo qaadayaa minadii aabihii iyo ugxaantii hooyada ayaa la soo qaadayaa kadib waxaa lagu beerayaa tube ayaa lagu beerayaa tubeka ayaa haddana dib inta looga sii qaado ayaa waxaa dib looga sii taalayaa haddana ilmo galeenkii hooyadii sidaa ayuu cunugii meesha uu ku korayaa. laakiin mararka qaar waxaa dhacda marka in ay saynis yahanada ama dhakhtarka sameynayo hawshani in uu soo qaado ugxaanta hooyada laba ka mid ah minada aabihii laba ka mid ah kadibna uu isku bacrimiya ayaa suuragal ah markuu dib ugu talaalo ilmo galeenkii hooyadina sidaa hooyadii ay ku dhasho mataano. idin sidoo kale way dhacdaa mararka qaar oo processka qaabka dhakhtarku u sameynayo ay badanaaba ay ku timaadaa. waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo dhalmo la-aanta oo loo yaqaano fertility drugs iyagana sidoo kale waxay qayb ka qaataan inay hooyada ama gabadha inay dhasho mataano. sababtu waxay tahay daawada loo yaqaan sida clomiphene oo kale oo kamid ah daawooyinka fertility-ga ama dhalmo la'aanta loo isticmaalo
waxay daawadaasi ay kor u qaadaa soo deynta hormoneska loo yaqaano FSH iyo LH oo loo soo gaabiyo follicle stimulating hormone iyo luteinizing hormone. hormoneskan iyagana sidoo kale waxay kor u qaadaan soo deynta ugxaanta in laga soo daayo ugxaan-sidayaasha hooyadu ay leedahay, taa oo keenaysa marka in xabadii aabihii inay ka faa'iidaysto ugxaantaasi sidaana mataano ay hooyadii ku dhasho. marka mararka qaarna way dhacdaa daawooyinka loo isticmaalo dhalmo la-aanta iyagana sidoo kale inay qayb ka qaataan inay hooyadii inay dhasho mataano. waxaa kaloo kamid ah dhirirka oo badanaaba daraaso dhakhaatiir ay saynisyahano ay sameeyeen ayaa waxaa lagu ogaaday dumarka dhaadheer in ay haystaan fursad ay mataano ay ku dhali karaan marka loo fiiriyo dumarka gaagaaban. macnaha waxaa laga wadaa dumarka dhaadheer fursadda ay mataano ay ku dhali karaan way kaga badan tahay marka la barbardhigo dumarka gaagaaban. waxaa kaloo kamid ah astaamaha ama waxyaabaha fudayn kara in hooyada inay dhasho mataano naas nuujinta, oo ah hooyada inta ay naaska ay nuujinayso haddii ay uur qaado fursadda ay mataano ay ku dhali karto aad ay u badan tahay. daraasad cilmiyeed dhisme ayaa waxaa lagu ogaaday dumar fara badan oo uur qaada inta ay naaska ay nuujinahiin in ay heleen fursadda ay mataano ay ku dhali karaan gebi ahaan. marka badanaaba dumarka uur qaada inta ay naaska ay nuujinahayn iyagana sidoo kale waxay tahay fursad ay mataano ay ku dhali karaan. waana laakiin waa daraaso la sameeyey oo 100% lama hubo, kaliya waa daraaso cilmiyeed la ogaaday waaye. waxyaabo waxaa jiro ay dadka inta badan dumarka ay sameeyaan oo ay u maleeyaan in ay u fududeyn karaan inay mataano dhali karaan laakiin aan sax ahayn. waxaa kamid ah tusaalaan oo kale inay dumarka isticmaalaan daawada loo yaqaano folic acid, cabitaano fara badan in la cabo kale, caano fara badan in la isticmaalo, iyo sleeping styleka oo ay ninkooda ay ula sameynayeen idin sidoo kale inay qayb ay ka tahay inay u fududeyn karaan. waxyaabahaas oo dhan runtii sax ma ahan, wax saameyn ay ku leeyihiin in hooyada inay mataano dhasho ma lahan. laakiin wixii inta aan idiin soo sheegay ayaa sax ah, waana wax caafimaadka inta badan 100% loo ogaaday, qaybna ka ah inay hooyada mataano ay dhasho. haddaad runtii page-keena ku xustaa fadlan subscribe sar oo nagu soo biir. aadaad umahadsantihiin.